maanta halkan aan imaado oo aan furo guryaha loogu deeqay dadkii Soomaaliyeed oo dhibaatooyin ka soo gaareen koonfur iyo kuwa kale oo iyagana abaarihii dhowrka sano oo hore ka soo dhacay dhulkaan iyagana dhibaato ka soo gaadhay in maanta shelter ama guryo ay dhaxanta iyo dabaysha ka galaan iyo roobka halkan looga dhiso oo ay degaan iyadoo ka mid noqotay xaafad ka mid xaafadaha Garowe deegaanka loo dhashay oo lix boqolna magaalada Garowe laga dhisay xaafadan Jilab xaafada sideedaad ee magaalada Garowe lagu magacdaray iyo magaalada Buurtile oo yara gobolkan waa ka mid ah waxa weeye waa wax weyn oo waxtar u ah dadka danyarta oo awal ku noolaa meelaha aan bini'aadam ku noolaan karin oo ah mushash iyo boco iyo wax kale isku xirxiray oo iyagu isku xirxirteen awood badanna iyaguna ayan hayn cid u haysaan ayan jirin in beesha caalamku iyo dowladda kulaan iska kaashadeen inay u sameeyaan mashruucan aad iyo aad iyo faa'iido raali gelinaysaa waana uga mahad celinayaa dowladaha deeqda bixiyey waxaan kaloo mahad u celinayaa hay'adda World Vision oo aad khayri ah Soomaaliya iyo caalamka inta laga yaqaano ka shaqaysa oo guryaha ku deeqday waxaan leeyahay lacag badan baa Soomaaliya loogu deeqaa ama ahaato humanitarian ama ahaato horumarin laakiin in badan baa waxay ku baxdaa waxaan hadhow la taaban karin oo aan bini'aadamkii hadhow waxtar u ahayn oo waxaa faa'iido weyn oo la sheego aynan ka hayn sida shirar la qabto iyo seminaaro iyo safarro lagu aado dibaddaas oo meelaha hoteello waaweyn la isugu tago oo qarashka ay qaataan hoteelladu iyo beerdiin iyo tigidhada yareed ku taxa waxaa waxtar ka ah waxaa muuqda oo bini'aadamka lagu taraayo sida guryahan oo kale iyo gelinta iskuullada meelaha xarumaha caafimaadka wadooyinka iyo wixii kale oo mashaariica oo dadka u soo noqonayo waxay taraya dakhliga qofka bini'aadamka shakhsiya soo gelaya iyo noloshiisa aasaasiga sida guryaha baahiyo bini'aadamka lama koobi karo waa tiro badan yihiin guryo mid bay ka horraysaa waxaa ugu horreeya qofka bini'aadamka baahiyiisa waxaa ugu horreeya nabadgelyada inuu nabad helo ugu horraysa nabad jirkiisa iyo maskixiyan mid maskaxeed oo psychological ah iyo mid physical ah inuu labadaa helo nabaddaa ugu horraysa waxaa ku xiga wixii uu cuni lahaa biyaha iyo cuntada waxaa ku xiga meesha oo dabaysha iyo qoraxda ka geli lahaa waxaa ku xiga wixii kale oo markaa soo raaca oo tacliimtii iyo caafimaadkiisii iyo meeshu ka shaqaysan lahaa iyo waxaa lama koobi karo dayaalaka waxaan ku leeyay ninka la yidhaahdo Muuse Muuse Gaare oo lahaa maaragtay qol kale halooga ku sii daro waa run Soomaali waxay tidhaahdaa ninkii madaxa meel la helaa lugaha meel la doono haddii marka hore bal madaxa meel la heshiy lugahana inaad meel kale dhigato waa sii doonaysaa Muuse dhalinyaro ah nin xoog la weeye haddii dhul lagu siiyey meelaad madaxa la geshina lagu siiyey carruurta ku samayso muusul lagu siiyey biyihii magaalada laguu soo geshay wadooyinkii nan laguu sameeyey stationkii la keenay rugtii caafimaadka la sameeyey iskuulkiina la samaynayo oo la socdo intaasoo dhan haddii la samaynayo wixii kale oo adeega adigu lafee xoog baad leedahay qolkii kale ku darso oo isaad soo shaqaysid qolkii kale waa la yeeli karay in 1200 oo aqal laga dhigo oo markaas la isku cesho oo aqal inta ay ka qoran bataan waa la yeeli karay laakiin waa la kala doonay waxa la yiri nin baa qof baa ku jira reer dhan baa ku jira inay meel u galaan oo la badiyo ma ka doono inta hal reer ma inta ka tirada la sameeyo insha Allah baahi xuduud male waa la heli doonaa qoran karo dheeraadka ah intii hadii marmaanka la sameeyay ama iyaga ku tirsan doonaa dadkii haystaan
أما اللي هي الدولة عندك والحساب وأنت كنت كذا هذا ما نسوي بيننا مشروعا وتركيزه وله كارياشي سيله عندك عندك الجنسية وجهة الجنسية جينا أمها تشغالي كشغال إنجنير كهو أوليك عند هاي كذا هي مشروع ووربيشن كانتري دايركتور كوا ومشروعا يجب وله الجنسية واحد في عالم الجنسية الجنسية هذا مشروع وعمان قال له تذكر بلان ودت كان ولا الصوماليين ولا وسوي على البيان يامي ولا ويجي كنا كجرا شو ومشار معي تاي اللي دول بير يجي معين بير ماله بير قبل ما يجي عطوا عطوا اليوم ما ركش شوي بدل والمركز جرين قالوا يكون نسبيين لكن وعلم الله يبارك الله بصدق الإسبري ليس دعك الأدب هالكان والدقيقة وقيد بدل والدقان كان بالين للدقان يوم عادت كسب بركة عيمية وعلى اللي هاي على النافين بركة إسبرتا دانسيا ولا أكثر هذا عيال يجنا برا يجنا هاي